السلام عليكم أصحاب الشرف تلسود وهذا ما تحنو بلامي برنامج عن نقوم عدري كفتر سوقوري أنا وسوق هذا يا برنامج كامل بعدي أسرع وسكوها بويهين أما وي مقرنا يسها وسكوها بحلحين برنامج كوا حن نرسل عسينا يا كفتر سوقوري أنا جوا قيرو قريوب مقعي جوا قيرو إنا قريوب مركز أنا قيرو إنا قيرو قريوب أنا نرسل عسينا يا سود وهذا تاوشنا في عن برنامج كذا اوكي سان sheegay waxa barnaamijka waxa la kafta soo guuray labada qof maanta kafta ka soo guuranaya waxa weeyaan waa Maxamed Saciid BK fanaan kamid ah fanaaninta Soomaalida ugu codka macaan iyo barwaaqalanjo oo kamid ah fanaanada ama kamid ah fanaanada ugu quruxda badan runtii dhinac walba labadaas soo guuranaya waxaan ka hadlaynaa maxaadiis ku saan dhici lahaa iyo bulshadu si u hadal hayn lahayd اوكي هادان كهادلو hadalhaynta dadka aan ku horeeyay dhinaca dumarka horta dumarka waxay eegaan ninka waxyaabo badan bay ku eegaan markuu fanaan yahay codkiisa macnaha jecel yihiin oo way isku qorqoraan gabadhan oo keega haduu gabadhaas oo qurux badan u guursan lahaa qaar badan baa dumarka wax badan u arki lahaa oo oran lahaa ninkaas wallahi waa khatar xiblo kala ma ahaado marka quruxda maartay dumarku macnaha way waxyaabaha ay isku qiimeeyaan ku kala dambeeyaan weeyaan midda kalena fanaanka waxyaabaha ragga qaar ay ku jeceliin dumarku dhowr waxba ni sheegi doonaa ragga ama haddii aad jeceshiin dumarku ku dabayaan inaad noqoto waa muhiim dhowrka qodob maanta qodobka aan sheegaya waxa kamid ah in haddaad fanaan noqoto ay dumarku dabayaan doonaan ku jeclaan doonaan ragga qaar baa la shil maraac jecel dumarka inay samarba u dabayaan mugtahay marka hadda fanaan noqoto wallahi naga oo dhan ba ku jeclaanaya inta la iska taho dhacaraysa hadii marka waxaad noqonaysaa in la hadal hayo marba xagga ragana haddaan ka hadlo horta ragga waxba isuma ogola badankoodu waliba saaxiibta ragga inaad yaraysato way fiican tahay yani yarayso basan way fiican tahay marka haddii uu biinka gabadhaas kale guursanaa qaar badan baa ragga la saaxiibi lahaa oo imika aan la saaxiibin ama la saaxiibi lahayn marka mid walba xoolan lahaa hebel ma jooga guriga kusoo boqon lahay calashan si gabadha u arkaan oo macnaha qaar baa xitaa isku dayay inay kala baxaan marka ragga qaar badan asxaabta qaar badan baa liito oo ciisade marka waxba u quureenba marka BK-ga marka kafta ku guurso barnaamijkan dadka qaar baa wax kala soo dhexsaaray waa kafta guurso iyo madalo yani hadii BK guursan lahaa gabadhan horta way soo qalmaan maadaama codkiisa u jaraya bro qalanjo iyo midka qurux badan ba marka maasha Allah bro qalanjo iyadan darto wal arki doona cid guursatay laakiin barnaamijkan wuxuu ahaa kafta ku guurso maanta halkaas ayaan ku joojinaa BK iyo fanaaniinta kalena way soo dayn doonaa nala socda si fiican